barasabka gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Axmed Abakar ayaa maanta kulan la qaatay xubno kamid ah shirkadda Tawfiiq ee xamuulka ka qaaday dekedda magaalada Berbera. Kulankan ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii dhawaan muran xoog leh ka dhex taagnaa shaqaalaha Tawfiiq iyo maamulka. taasina waxa ay sababtay in la xiro dhammaan maamulkii sare ee shirkadda Tawfiiq inkastoo hadda dambe lagu sii daayay. kulan kamaanta nooga bilaabmay horta waa kulan wada tashiya oo hordhac ah markaa kulamo wada tashiya oo la geli doona markaa maamulka iyo xubnaha iskaashatada gaadiidleyda xubnaha markaa leenahay waxa qof kasto ka tirsan shirkad iskaashatada Tawfiiq ee gaadiidleyda xaq wuxuu leeyahay markaa in taliyihiisa la dhageysto anaguna markaa aan la kulanno aan markaa dhageysano waxa kale jirta markaa guddi ay iska soo doorteen oo koob iyo konton ah iyo guddi kale fulineed oo markaa ayaguna xafiiska gaadiidka ka shaqeynaya waxaa nasiib darraa markaa waxyaalaha nagu halkan nimana ka mid ah in xafiiskii iskaashatada Tawfiiq uu maanta xidhan yahay waxaa nasiib darraa markaa in maamulkii fulinta joogay ee guddidii fulinta in ay eedeysan yihiin in maamul xumo lagu eedeynayo in hantiya lacag maqan lagu eedeynayo in lagu eedeynayo markaa inay mas'uuliyaddooda ka soo bixi waayeen arrimahaasna markaa baaritaankooda u socdaa xisaabtii iyo dhaqaalihii lacagtii loo dhiibay inay xisaabiyaanna waa laga sugayaa maantay soo gudbinayaan maamul xumada iyo khaladaadka la sameeyay waa lagu xisaabtami doonaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markaa barasabka gobolka runtii shaqo fara badan iyo dadaal fara badan iyo runtii badbaadiye baan odhan karaa markaa ururkan oo tiimku meel gaadha usii dhiibay laakiin tiimkaas muddo gaaban bay shaqayn doonaan wada tashigan iyo wada hadalkan wadna imika markuu noo dhammaystirmo waxaan dib u dhisi doonaa markaa ururkii Tawfiiq albaabada loo furi doona insha allahu tacaala sidaan aanu caddayno ujeeddada anugu halkan u joogno gobolka saaxil maalmo badan baan joogi doonaa maaha doorasho maaha doorashada waqtigeedii lama gaadhin cid la dooranayaa ma jirto ururkaa la saxaya ururkii baa xidhan waa xafiiskiisu xidhan yahay hanti baa ka maqan isagaa deyn loo sheeganaya deyni ku maqan tahay waxaasaa horta la saxaya ooda dhacmaysa oo kala sarreeyaan baa loo qaadaa baa layidhi siyaasadda xukuumadda muuse biixina waxa weeyaan in la horumariyo markaa institutionada madaxa bannaan ay leeyihiin markaa shacabku iyadoo shuruucda iyo la marinayo markaa nidaamka aad iyo aad waa geesta kale isagu waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil dhexdiisa maamulkii baa eedeysan oo ay ku sheegayeen iyaga dhexdoodu hawla jireen waxa weeyaan si hawlahaasi loo kala furfuro xafiiskii gaadiidkana loogu soo celiyo sidii hore ee uu shaqayn jiray iyo hufnayd ayuun baanu wadnaa waxaan markaa imanka gaadiidleyda aan la kulannay si fiican baan isula qaadanay in howlaha la gudagalo wixii hore la qabtayna la qabtay wixii imanka hawl inoo taalana walba waa tallaabadaasaan marka qaadnay waa Xamse Jaamacire telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Berbera.